بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa xafiiska guud ee waxsan sheeg news laantiisa Norway oo halkan caaw nagu soo booqday gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani laantiisa Norway oo boqosho gaaban nagu soo gaadhay kusoo master Maxamed Xasan Cismaan gudoomiye ku-xigeen kusoo dhawow waxsan sheeg news aad iyo aad baad mahadsantihiin bahda saxaafadda waxsan sheeg news waana mahadsantihiin. Okay, gudoomiye waxaad halkan noogu shaacisaa ujeedada booqashadaada caawa aad nagu soo gaadhay xafiiska guud ee waxsan sheeg news. runtii waxaan caawa idinku soo booqday anigoo ah Maxamed Xasan Cismaan ahna gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga wadani ee laantiisa Norway in aan iska casilay xilkii aan u hayay xisbiga wadani laantiisa Norway. waayahay gudoomiye waa maxay sababta aad xilka iskaga casishay ma arrin xagga private-ka aba mise waa arrin xagga mabda'a siyaasadda xisbiga wadaniga sababaha kugu kalifay inaad xilka iska casisho wax ma nagu sheegi kartaa? haddaan in yar kaaga sheego waa xagga sababaha siyaasadda ama ha noqdo buuggan qabyo qoraal ha noqdo ama ha noqdo wada shaqeyn aan dadka wada shaqeyn kar weynay taas ayaa igu kaliftay in iska casilo xilka. waayahay gudoomiye maxaad tabanaysaa xagga wada shaqeyn la'aanta aan kula soo gudboonaatay xagga wada shaqeyn la'aanta xisbiga wadani qaybtiisa laantiisa Norway? wada shaqeyntu way fara badan tahay oo dadku siyaabay wax u wada arkaan marka waxa weeye anigu sidii aan jecelahay iyo dadkii la shaqeynayay sidii ay wax u arkayeen ayaa isku mid noqon weyday sababahaas ayaan anigu iska kacsilay xilkii waana intii aan soo wada shaqeynayna alxamdulillaah rabbil caalamiin dad si waxna waan wada shaqeynaynay intii aan soo kala weynayna waxa weeye dib waan iska dhigay xilkii. aad baad u mahadsantahay gudoomiye su-aasha intaa ii dheer waxay tahay dhammaan xaaladihii siyaasadda aad ku dhex jirtay miyaad iska xidhay mise waxaad ku fikiraysaa inaad xisbiyada kale kamid ah aad u diga rogatid? runtii xisbiyada kale xisbiyadu way fara badan yihiin laakiin anigu haddii aan diga rogto waxaan u diga roganayaa xisbiga kulmiye ee uu maanta gudoomiyaha ka yahay Muuse Bixi Cabdi oo aan isleeyahay waana xisbi dee markii horena dee waddanka wax usoo qabtay hadduu isagu qabtana wax u qaban karaa. waayay gudoomiye intaa waxaa ii dheer haddaan su-aal kale kaa weydiiyo xagga xisbiga kulmiye ah ee aad u diga roganaysid xisbiga kulmiye qudhiisa waxaa ka yara taagan xoogaa khilaafa waxaana jiray wasiiro iska casilay xilkii oo isku magacaabay inay yihiin waxda ama garabka isbedel doonka xisbiga adna imikaad xisbigii kusoo biiraysaa sidee baad arrinkaa isaga u aragtaa? waa su-aal fiican su-aasha aad weydiisay Yuusuf. runtii dee horta wasiiradan is casilay Somaliland mutacalimiin badan ama jaamacadooyin badan ayaa jira waxna umay noqon xisbiguna waxba uma noqon dowladdiina waxba uma noqon shacabka reer Somalilandna waxba uma noqon waa niman iminka iyagu tareenkii ka hadhay bay noqdeen oo ka dhacay marka waxa allaale iyo waxa ay xisbiga iyo shacabka Somaliland iyo dowladda toona ay wax yeelayaan ma jirto. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaani oo ahaa rugcadda aad iyo aad markiiba si degdega go'aan uga qaatay oo kusoo buuxiyay positionkii aqoon-yahano reer Somaliland iminkana meeshii ay ka wada tageen way wada buuxdaan. waana jeclaa runtii rag badan baa jiray oo kulmiye ahaa iyo qaar demoqraansi ay tareenka dee sidoodaba uga dhacay marka horaa waxaa loo odhan jiray hees baa odhan jirtay caqligii wanaagsan aqoon inuu karooyo bal ugu fiirsada rag fara badan oo lalahaa waxay sitaan degree PhD ama garansay master grade ayaa inama yaryari ka fiicnaadeen oo jarkii ka tuureen marka waxaan leeyahay runtii dee waxba u noqon mayso Somaliland waa xaween waa waddan weyn ummad fara badan oo aqoon-yahanina baana jooga iminkana kulmiyana waxba noqon dowladana waxba noqon shacabka reer Somaliland waxba noqon. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya madaxweynaha arrinkaas uu gaadhay.
waaya guddoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay inu kaaga mahad celina booqashada gaaban aad nagu timi xafiiska guud ee waxsan sheeg news sidee baad haddaan su-aal kale ku weydiiyo sidee baad u aragtaa dhammaan xisbiyada kale hadday tahay ucuud khilaafaa ka taagan hadday tahay xisbiga wadani qudhiisu doorashooyin ayaa kusoo fool leh sidee baad u aragtaa doorashada soo socota iyo xisbiyada maanta somaliland ka jira sidee kuula muuqdaan runtii dee horta labada xisbigan isagu ninka ugu dhamaystay oo Muuse Biixi Cabdi baa madaxweynaha ah gudoomiyaha xisbigana maanta isagunbaa ah kaasoo waxa weeye waa sheeko dhamaatay weeyaan cidna dib usoo noqon maayo hore usii soconaya labadan kale imka foolanaya waan garta ilaa horta waxaan uga baryaynaa inuu sida deen garanaysa wanaagsan ay iyaguna tooda ay u qabsadaan dee haddii u qabsan waayaan dee waxa weeye uun hadhowto waqtigii markay gaadho inta hadhay unbaa ayuunbaa tashan doontaa somaliland waxay leedahay weligeedba waa la wada tashan jiray geed baa la wada fadhiisan jiray guurtii baynu leenahay marka runtii aada iyo aad waxa weeye dee hadday salaamada ka dhacaan oo isqabsigooda iyaguna uu bato kulmiya imanka uu ka baxay waxaase inuu dee somaliland aanay tashatay waayahay guddoomiye kelmadda u dambaysa iyo gabagabada barnaamijkeenan wareysiga gaaban aan xafiiska waxsan sheeg news kugula yeelanay maxaa kelmadda u dambaysa ee dardaaran iyo somaliland shacabkeedaba aada usoo jeedin lahayd in somaliland shacabkeeda iyo dowladda iyo dhammaan xisbiyada waxaan usoo jeedin lahaa runtii waxaan leeyahay shacabka marka ugu horeysa qabcaas qabsada kuwan isku dayay inay dowladda majaxaabiyaan ee iminkana shacabka loo tumayo inay meel uga soo jeedaan ayaan leeyahay waxaan leeyahay nabadiina adkaysta somalilandna waxa weeye ama kulmiye ha ku jiro ama wadani ha ku jiro ama ucud ha ku jiro waxa weeye waa saddex xisbi qaran weeyaan waana isku mid weeyaan dadkani waxaan leeyahay nabadda uun ha laga wada shaqeeyo doorashada sidii ay u dhici lahayd ee xaqaana hala sameeyo tii ay raacdan baa dee wadi doontaa insha allah billahi kariim waxaan leeyahay sidaasaan leeyahay idinkana haddii aad tihiin saxaafadda waxsaasheen news aada iyo aad baan idinka mahad celinayaa sida sharafta leh ay soo maxsuunteen waan idinku mahad celinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aada iyo aad ayaad u mahadsantahay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee xisbiga wadani laantiisa norway maxamed xasan cismaan aad baad u mahadsantahay wareysigana waxaa qaadaya anigoo ah wariye yuusuf tawakal waxsan sheeg news asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu